السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصباح وناكسن صاحبتي ذكالية maanta waa maalinteeni labaad ee safarkeeni sagaashanka maalmood ee noo socon doona insha Allah haddii Ilaahay Rabbul Caalamiin ka inoo admo. Maanta waxaa waaye haddii aad rabto nolol degan in aad ku noolaatid yaray rajada aad ka qabto dadka oo waxaad kordhisaa rajada aad ka qabto Allah subhanahu wa ta'ala. waxaa la rabaa maalin kasta inaad joogtaysid oo wax ay ku go'naadaan waxa aad ku duulaysid waa inaad garanaysid. maanta waa maalinteeni labaad juskii quraanka ahaa oo joogtada inoo ahaana yaana laga tagin yaa la ilaawin ha inoo socdo. shalay markaan dhahay waxa waaye hal jus aan ku soo koobaynaa 5 jus 4 jus aan dhehayni waxaan ula jeeday maaha inaad maalin kasta ba hal jus la aad ku koobnaatid. antii awla akhrisan jirtay akhriso sidaada kugu socdaan afartaada shantaada lixdaada halkaada labadaada ku socdaan laakiin halkan waa hal joogto ah oo 9 maalmood noo socon doona oo naftan aan ku tarbiyeynayn waay maaha ina hal jus la adeeg noloshaada aad ku soo koobtid maaha sidaasaan ula jeednay soona dhawaada waxaan rabnaa inaan wada guuleysano ayaan rabnaa insha Allah. safarkeeni waa inoo socdaa maanta waa maalinteeni labaad maalin ayuu noo soo gabagabo doonaa maalinta ugu dambeysay waa la gaaraa insha Allah aan isla socono aan wada guuleysano insha Allah. ani juskeygii waad arkaysaan waa maalinteedii labaad waan saxiixay adigana waad saxiixi kartaa inaad maalin kasta warqad aad soo qaadatid aad saxiixdidna uma baahanid. teleefankaada gacanta ayaad notebook ka samaysanaysaa kaasaad tig ka saaraysaa. juskana inaad kutaab maalin kasta aad raadisidba ma aha teleefana wadataa teleefankaadaad ka akhrisanaysaa markasta kaasaa iskula soconaynaa waa wada guuleysanaynaa. dhafarkan habeenkii waa iska yaraynaynaa si aan salaada subax iyo aan u soo kacno aan u soo kalahno oo magaalkeena aan waxbarashadeena iyo shaqadeena yowdi hore aan u aadno. haddii maalintii aad 2 saac shaqo aadaysid 12 ba iska soo kac beledka iska gal iska baashal casharkaadana akhriso. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.